السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا عشر كان تحناها ويندوز 10 maanta waxaan casharkan ku eegaynaa sida loo bedelo codka computerka ama speakerska ama microphoneka waa computer sound codka soundka sida computerka loo bedelo ayaan ku eegaynaa casharkii hore waxaan tagnay settings waxaan tagnay system waxaan ka hadalnay display oo monitor sida loo bedela marka kan waxaan ku eegaynaa lectureka ku xiga oo ah soundka ama codka computerka sida loo bedelo dhowr qaabood ayaad ku bedeli kadhaa ama ku eegi kadhaa ama haddii wax ka qaldan yihiin ku baari kadhaa oo codka computerka meesha ugu fudud haddii uu codka xiran yahay ama aad rabtid inaad xidhid ama aad dheeraysid ama aad gaabisid waxa weeye taskbarka ayaa iconka hoos dhanka midigta ku yaala oo codka ku sawiran yahay soundka haddii aad keli garaysid waxaa kuu soo baxaya volume-ka ama baaxadda codka computerka soo baxaysa meeshuu joogo waad dheerayn kadhaa waadna gaabin kadhaa haddaad dheeraysid codkii baa dheeraanaya haddaa gaabisidna wuu gaabanaya waxaad kaloo halkan ka xulan kadhaa device-ka ama shayga codka soo saaraya computerka oo sida aragtaan markaan calaamadaas ama fallaartaas gujiyo waxaa soo baxaya wixii ku xiran device codka soo saara computerkaas marka kaad rabtid ayaad halkan ka xulan kadhaa taas waa midda labaad waa meeshaan aan hadda joogna markaad tagtid start aad tagtid settings markaas aad tagtid system kabacdi aad keli gujisid sound taasna qaybtan kore oo odhanaysa output waxa weeye waa speakerka ama shayga computerka codka ka soo saaraya marka sidaad aragtaanba aniga hadda waxaan isticmaalayaa headset ama kan dhagaha la gashto marka haddii waxyaalo kale ama shayaad kaleo codka ay ku xiran yihiin computerka halkaasaad gujinaysaa marka kaad rabtid ayaa ku bedelanaysaa kaa rabtid inuu codka computerka soo saaro sidaa hadda idiin muuqata computerka 3 option haysta ama 3 waxyaalood ba cod ka soo saari kara waa headsetka ama kan dhagaha la gashto aan hadda isticmaalayo monitor computer ku xiran wuxuu leeyahay audio system isagana cod ka soo saari kara iyo computerka oo laptop oo leh speaker oo built-in speaker oo computer ku yimi gudihiisa ku jira cod ka soo saara saddexdaas kaan rabo ayaan halkaas xulan karaa inuu noqdo device-ka codka ii soo saara meeshaan hoose waxaad samayn kadhaa waa sidaan hore u aragnay volume-ka ama ka gaabin kadhaa ama ka dheerayn kadhaa oo codka siduu usoo saaraya computerka waxaad kaloo samayn kadhaa haddii cillad jidho dhanka audioha aadan aqoon waxay tahay trouble shoot aad gujin kadhaa marka wuxuu baarayaa shayada computerka ku xiran iyo wixii cillad ku jidha marka sida muuqata hadda wuxuu ii soo saaray inaa isticmaalayo kan dhagaha la gasho headsetka dhagaha la gashto marka haddaan dhaho next aan idhaahdo balbaar waxaa cillada ka jira cillada headsetka oo marka haddii wax cillada ka jiraan saa markaan sameeyey wuxuu ii sheegayaa inaanusan wax cillada uusan soo helin laakiin aan samayn karo enhancementga waxa weeye waxyaala cod ku bedbedeli karid ku weyneyn karid ku dheerayn karid ku gaabin karid marka halkan optionskan waa enhancement weeye waa waxyaala aad codka ku qurxin kadhid marka mid ka mid a haddaad taabatid waxaad samayn kadhaa markaad xulatid midkaas ka mid a preview ayaa odhan kadhaa markaas siday usoo baxayo codka waad eegi kadhaa macnaha inuu weynaanayo inuu dheeraanayo inuu gaabanayo inuu baaxadiisa isbedelayso waxyaalahaasoo dhan ayaad ogaan kadhaa marka mid walba markaad gujisid waxaad samaysaa preview samee markaasaad arkaysaa siduu codka u egyahay siduu codka macnaha wax uga bedelay u qurxinayo haddii aad rabtid inaad sidii hore aad ku celisidna waxaa odhan kadhaa restore default waxaa laga wadaa siduu hore uu ahaan jiro computer ku yimi ku celi oo settingkii adag waxyaalaha badbadsho dhan ka saar meesha halkaana sidoo kale waxaad samayn kadhaa baaxadda ama quruxda codka siduu usoo saaray ama weyneyn kadhaa loon ka dhigi kadhaa ama gaabin kadhaa marka haddaan taas ka tagno aan ku noqdo meeshii hore kan iska xiro
halkan qaybtan hoosena waa sidoo kale waa inputka waxa weeye waa microphone computerka wixii codka gelinaya sida muuqata laba option haysta waa speakerka waa microphone computer ku yimaada oo laptopka iyo microphoneka ku yimaada waa option iyo headsetka ama kan dhagaha la gashto aan hadda isticmaalayo labadaas shay baan haystaa xasuusta markaan taabto shayga codka soo saaraya 3 option haystaa waa monitor ka mid ah marka monitorka microphone ma laha speaker bas uu leeyahay marka maadaama microphoneka computerka iyo laptopka iyo microphone uu leeyahay midkan headsetka dhagaha la gashta isticmaalayana microphone uu leeyahay labadaas option baan microphone haystaa sidaan hore u sameeyay speakerka troubleshoot ugu sameeyay si lamid ayaan microphonekana troubleshoot ugu samayn karaa oo haddii cillad jidho markaas isaga ayaa isa samaynaya markaan ka soo tago advanced sound options waxay ku siinaysaa inaad macnaha master volume waxa laga wadaa waa systemka dhan wixii codkiisa uu bedelaya macnaha ayaa dheerayn ka dhaa ama gaabin ka dhaa waa system wide wax kasta oo computerkaas ku xiran waxaad kaloo samayn kadhaa halkan waxaa ka xulan karaa deviceka speakerka soo saaray codka soo saaraya systemka iyo kan microphoneka codka gelinaya computerka haddaad rabtid marka windows 10 waxay ku siinaysaa applicationada qaarkood inaad bedeshid shayga codka soo saaraya iyo shayga isticmaalaysid haddaan rabo zoom oo kale inaan dhaho mar walba aan zoom isticmaalay waxaan rabaa inaan isticmaalo headset ma rabi inaan laptop isticmaalo waad samayn kadhaa oo waxaa oran kadhaa zoom ba hadduu yahay waa inuu codka kan dhagaha la gashto kasoo baxo markaan wax duubaya ama wax gudbinaya cod gudbinayana inuu kan dhagaha la gashto uu yahay waan samayn karaa saas so mar walba aad zoom isticmaalaysid waa applicationka zoom meeting aad isticmaalaysid wuxuu isticmaalayaa headsetkaaga wax kale ma isticmaalayo wixii kaloo cod soo saaraya ama cod computer gelinaya waxay isticmaalayaan master settingka computerka ama sound settingka oo kaas kore ayay isticmaalayaan wax kasta kan kore waxaan ka dhigi karaa oo kale speaker computerka meeshuu ka ahaa headsetka speakerkan ka dhigi karaa marka fiiri kan maadaama aan kan bedelay kulli waxyaalihii kaleo dhan wuu bedelay marka waxaan samayn karaa ku celin karnaa defaultigana waa arki doonaa defaultiga waa defaultiga waxaa jira meel laga set gareeyo muddo yar kabacdi ayaan isagana gaari doonaa marka haddaan ku celiyo kaas sidii hore waxaan rabaa inaan isticmaalo headsetka kan aan isticmaalo headsetkan ku wada celiyo ama aan dhaho reset sidii hore ku wada celi wax kasta siduu ahaa ku celi resetka means sidii wixii hore ahaa intaanan aniga wax bedelin ka hor ku celi marka intaa haddaan ka gudbo meesha kale oo aan sound ka bedeli karo waxa weeye control panelka control panelka waxaan halkan ayaan ka baari karaa sida ugu fudud markaan control panelka furo waxaan tegayaa sound default haddaan rabo inaan bedelo oo macnaha shayga haddii aanan wax bedelin codka soo saaraya defaultiga waxa weeye waa shayga codka soo saaraya ama u gudbinaya computerka mar walbo aad application isticmaasho ilaa aad ka bedeshid marka hadda sida halka ay idin muuqata headsetkayga ayaa default ii ah haddaan rabo inaan ka bedelo waxaan tegi karaa midkaan rabo ayaan ku bedeli karaa dhanka midigta ayaan ka gujinayaa waxaan odhanayaa set as a default device okay marka hadda wax kasta oo computerka aan cod ka daaro wuxuu ka soo saarayaa kan oo ah audioha laptopka ku xiran oo speakerka laptopka ku xirana midda kale right click haddaan ku sameeyo waxaan odhan karaa test markaan test galayo siduu codka inuu macnaha kaas shaygaa shaqayn in kale saasaan u test garayn karaa right click test wuxuu ii fududeynaya inaan ogaado inuu shaqaynayo waxaan kaloo ka dhigi karaa set as a default communication device oo mar walba oo aan wax gudbinayo isagaan ka dhigi karaa taas okay marka taas saas ayaa macnaha defaultiga soundka defaultigiisa loo bedelaa waxaad kaloo halkan samayn kadhaa right click haddaa deviceka aadan isticmaalayn waxaad samayn kadhaa waad curyaamin kadhaa oo disable ka dhigi kadhaa macnaha right click haddaa ku samaysid
option wuxuu ku samaynayaa aad disable uga dhigtid. waxaad kaloo samayn kartaa haddaad rabtid shayada oo aad disable ka dhigtay inaadan arkin, right click haddaad ku samaysid meeshaan odhanaysa show disable devices waad ka qaadi kartaa. haddaad ka qaadid check markiga saaran macnaha way kaa qarsoomayaan, wixii disable oo dhan way kaa qarsoomayaan. sidii kale waxay aan connected ahayn oo kale hadda haddaan right click ku sameeyo aan idhaahdo aan calaamadda ka qaado show disconnected devices, deviceska aan xirnayn oo aan isticmaalayn way sidoo kale way ka baxayaan meesha. marka control panelkana saasaad uga bedeli kartaa codka computerka. sidoo kale hadda halkan waxaan bedelnay playback oo speakerska, recordingka oo microphoneka ah, sidaan tan u bedelnay camal waxba kuma kala duwana, saas uun baad samaynaysaa. soundka waxaa ku jira mar walba aa wax furaysid ama windowska uu daarmayo ama applicationada default soundkooda ayaa ka badbedeli kartaa. laakiin inta badan waxyaalahan oo dhan meelsha keliya oo la bedelo un playbacka iyo recordingka. kuwan kale waxa weeye haddii aadan adiga markaas aadan problem raadinin sidooda uun ku dhaaf. taa haddaan ka gudubno waxaad meesha kale aad ka bedeli karid codka waxa weeye waa halkan aan waxyar hore uga hadlay oo meeshaan markaan hadda right click ku sameeyo wuxuu isiinaya option aan ku furo sound settingka oo meeshaan hadday wax ka badbedelayna. right click waa dhanka bidixda ayaan ka gujiyey, waxaan idhi open sound settings, taas ayuu furay. waa meeshaan hadday wax ka badbedelayna. wuxuu kaloo isiinaya option oo aan mixture computerka ka badbedelo, macnaha qaabku codka ula shaqaynayaan sound mixture-ka. haddaan rabo hal mar inaan kuwaan oo dhan wada qaado, hal mar halkaan inta ka qabto aan wada qaadi karaa. mid haddaan rabo inaan u qaadana mid aan ka dhigi karaa, mid waan u qaadi karaa. saas ayaan u kala bedeli karaa, macnaha hal marna waa wada qaadi karaa, midna waa u qaadi karaa. midda kale aan halkaan samayn karo waxa weeye trouble shooting. hadday usoo aragnay oo kale iyadana halkaan waan ka samayn karaa. haddaan dhanka midigta ka gujiyo trouble shootinga saasaan u samayn karaa. marka waxa oo kaloo aan samayn karno haddii uusan shaqaynayn audioda codka computerka dhan oo intaan hadda sheegnayna aa fiirisay ay ku shaqayn weyso, waxaa kaloo samayn kartaa waxaad tegi kartaa device manager device. hadda halkaan ku qodhid kusoo baxaysa device manager. marka waxaad fiirisaa meesha odhanaysa audio inputs and outputs. haddaad calaamadda geeskeeda gujisid waxaa halkan kaaga soo baxaya audioda device-yada audioda oo computerka ku xiran kulligood. marka calaamad yellow ah ama se exclamation mark ama wax saas kale hadday kuu soo baxaan micnaheeda waxa weeye device-kaas waxa uu ka maqan yahay computerka oo driver saxa kuma xirna ama maba shaqaynayo oo waxbaa ka khaldan oo waa bakhriman yahay. marka halkan hadday cillad ka jidho meeshaan aad cillad ku aragtid micnaheeda waxa weeye hardwareka ama deviceka laftiisa wax ka khaldan yihiin ama driver khalada ku xiran. marka taas waxay kuu sheegaysaa un inuusan waxay kala samaysid ay shaqaynayn. marka clipkan intaasaan kusoo joojinaya insha allah. next clip stay tuned. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.